السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa kanaalka Guubaabo waxaana idiin soo gudbinayaa xikmado xul ah oo qurux badan oo laga yaabo inaad maqlayso markaagii kuugu horeysay. qofka doonaya inuu guuleysto ma dhamaadaan fikradihiisa, qofka doonaya inuu guul daraystana ma dhamaadaan cudurdaaradiisa. insaanku wuxuu u baahan yahay 2 sano si uu hadalka u barto, laakiin 20 sano ayay qaadataa inuu fahmo micnaha aamusnaanta. haddii dhibaatadii kugu dhacday ay ahayd mid Ilaahay xaggiisa kuu dhaweyda, taasi marnaba dhibaato ma ahayn. inaad dad badan ku dhex jirtaa kama dhigna inaad tahay qof wehel haysta, sidoo kalena inaad kaligaa tahay kama turjumaysa inaad tahay qof cidlo ah. jaahilku ma aha qofka aan waxba akhrin karin ama aan waxba qori karin, se jaahilka dhabta ahi waa qofka garanaya halka ay qibladu ka jirto balse aan tukanayn. qof walba ayaa kaa dhool la cadaysiin kara maalmaha qaar, laakiin hal qof ayaa si dhaba kaaga farxin kara mar walba. sababta ay dhaguhu laba u yihiin afkuna uu mid kaliya u yahay ayaa ah inaad wax badanna dhagaysato, in yarna aad hadasho. qofna ma awoodo inuu fuulo dhabarkaaga haddii aadan adigu dhulka u seexan, sidoo kalena qofna ma awoodo inuu ku dhaawaco haddii aadan adigu u furin qalbigaaga. safarku marka hore wuxuu kaa dhigaa qof aamusnaan badan, marka dambena qof hadal yaqaano oo xikmad badan. ha ku noolaan sugitaanka qofkaasi oo aanba muhiimad siinaynin adiga jiritaankaaga, hana ka dhigin maqnaashiyihiisa khasaaro adiga kuu soo hooyatay. waa walaalkeen Cabdicasiis Mucjis oo idin leh guuleysta. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.